soo dhawaada saaxiibayaal waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan kor intaan muuqaalkeena bilaabin haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe sheertan ha ilaawin laagtan waxay ii tahay dhiirigelin aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin. filimkeena wuxuu ku bilaabmayaa bilyaneer taajir oo lagu magacaabo Naari si lama filaana waxaa looga soo wacayaa xafiiska shaqada waxaana loo sheegayaa mashruuca shirkadiisa inay soo dalbadeen ganacsato waaweyn isagana wuxuu ku jawaabayaa heshiis waxaan kula jiraa shirkad kale. intaas kadib waxaana la barayaa atriishada filimkeena iyadana magaceeda waxaa la dhahaa Haarin iyadoo wadada socoto una socoto in interview laga soo qaado si lama filaana waxay wadada kala kulmaysaa Naari si aada inta ay u fiiriso ayay la yaabaysaa qaabka uu gaarigu u wado. Naari oo ka muuqatay silweyni ayaa meesha isaga tagaaya. Naari ayaa soo gaaray shirkadiisa shaqaalaha shirkadiisana aad ayay u soo dhaweeyeen. intaas kadib caawiyihiisa shirkaddu wuxuu u sheegayaa 5 daqiiqo gudahood inay ku heli doonaan gabar caawiye oo noqota. maalintii xigta Haarin ayaa imaanayso shirkadda Naari waxayna ka dalbanaysaa in shaqo laga siiyo. shaqaale ka mid ah kuwa shirkadda Naari ka shaqeeya ayay ku wareejinaysaa dukumiinti ay ku dalbanayso shaqada. intaas kadib gabadhii shaqaalaha ahayd ayaa ku jawaabayso mintigaaga waan gudbinayaa haddii laga soo aqbalay iyo haddii kaleba waa adiga isug halkan ayay leedahay. Haarin iyadoo faraxsan ayay soo galaysaa gudaha shirkadda. Haarin iyadoo waxay u haysataa in la aqbalay codsigii shaqada ay dalbanaysay. intaas kadibna waxaan arkaynaa Naari oo imtixaan ka qaadaya gabar ka mid ah gabdhaha soo dalbaday shaqada. gabadhaasna ma uusan jeclayn isaga. Haarin oo cadeynaysa ayaa soo galaysa xafiiska shaqada ee Naari. Naari intuu la yaabo ayuu dhahayaa fuulan ayaa xafiiskayga ku soo fasaxdeen. Naari ayaa weydiinaya Haarin lacagta ay doonaysay inay ku shaqeyso maadaama ay soo dalbatay shaqada. Haarin ayaa ku jawaabayso bishii waxaan rabaa inaan ku shaqeeyo $50,000 miisaanka culus ayaan ahay ayay leedahay micnaha aniga lacag yar ma qaatay oo kaleeto. intaas kadib Naari wuxuu ku jawaabayaa waxaan ku siinayaa kaarkayga aqoonsiga ee shaqada 24 saac soo aadan ayaa ila shaqeynaysaa hadda waxaad ka mid tahay shaqaalaha shirkadeena ayuu dhahayaa. Haarin aad ayay u farxaysaa waxayna leedahay lacag lagu daray shaqo ayaad isku heshay kaarka aqoonsiga shaqadana waa lagu siiyey. si lama filaana waxay soo xasuusanaysaa Haarin hadalkii Naari uu ku dhahay. Haarin waxay leedahay war in kaar qaba 24 saac oo kaliya miyaa kula shaqeynaya mise shaqaale toos oo shirkadda ka shaqeynaya ayaan ahay. Naari oo isla weyni ka muuqato wuxuu ku jawaabayaa adiga $50,000 ayaa dalbatay bishii laakiin waxaad ila sii joogaysaa kaliya 24 saac. Haarin waxay ku jawaabaysaa maanta oo dhan ayaan manaanka fadhiyay si aan u helo shaqada shirkadaada adigana waxaad leedahay miyaa kaliya 24 saac ayaa shirkadda ka shaqeynaysaa. intaas kadib Haarin waxay leedahay wax shaqo aan kaaga baahanahay ma jirto ee shirkadaada waan kaaga tagay. markii ay sii dhaqaaqday si lama filaana ubax miiska saarna ayaa gacanteeda ku dhacay. ubaxii dhulka ku dhici rawan waxaa badbaadinayo Naari laakiin qaar ka mid ah caleemaha ubaxa ayaa dhulka ku daadanayo halkaasna waxaa dhaawac ka soo gaarayo Naari. intaas kadib caawiyaha shirkadda ayaa imaanaya wuxuuna weydiinayaa Naari waxa ka socda xafiiska shaqada. wuxuuna u sheegay inay fariin ay ka soo gaartay qoyskiisa taasoo ahayd inuu qayb ka noqdo shir ay soo qabanqaabiyeen maalqabeennada magaalada. intaas kadib Naari isagoo gaarigiisa saaran waxaa soo wacaysa ayayna leedahay raadi gabar xiir kula samaysa si aan u arko ilmahaaga midaasna aad ayaan u jeclahay ayay leedahay. intaas kadib Naari wuxuu ku jawaabaya ayay wicitaano muhiim ah ay sugayo qolo ganacsata ayaan la balansanahay. intaas kadib Naari oo gaarigiisa ku dhex jira waxaa soo agmaraysa qoftii fudeedka qabtay ee Haarin. Naari wuxuu dhahayaa naa hogta istaag inta ubax xafiiskayga saaran soo jibisa iska soo orday miyaa ayuu dhahayaa. kadib Naari wuxuu soo furayaa albaabka gaarigiisa balse si lama filaan ayay iskugu dhacayaan. kadib Naari wuxuu ogaanayaa kaamiro inay meesha ku dhagan tahay fadeexa ayuuna ka baqayaa isla markiiba waa u istaagay. Haarin ayaa iyadana istaagtay oo aad u cabsatay. Naari wuxuu dhahayaa Haarin iga raali noqo si uu la kaca uma sameynin falkan. Haarin ayaa aad u xanaaqday goobta ayayna isaga tagtay. suuqii xigtan waxaan arkaynaa Haarin oo la joogto hooyadeed si lama filaan ah. dhinaca kalena waxaan arkaynaa gaari wadada socda oo gabar wadada iska socota ka kordhacayso. Haarin oo fudeed socota ayaa la soo baxaysa kaamira si ay u duubto ficilka socda. Haarin oo iska wadata duubista fiidiyogeeda ayaa daaqada gaariga waxaa soo furaysa duq waayeel ah oo aad u dhowl cadeynaysa. duqdaana waxay leedahay argabadan qurxoona waxaan la jeclaan lahaa wiilkayga Naari. suuqii xigtan ayadan taajirada waxaa loo soo dirayaa sawir laga qaaday Naari iyo Haarin mar ay si shilay iskugu dhaceen. inta ay zoom dhacdo sawirka ayay leedahay tani soo ma ahan midii kaamirada duubaysay farxad darteed ayay la ilmeynaysaa riyo waaye ayay leedahay midaan wiilkayga qoftii qurxoneed miyuu helay oo kaleeto su'aalo noocaas oo kaleeto ayay isweydiinaysaa. intaas kadib Naari ayaa goobta imaanayo iyadoo dhowl cadeynaysa ayay Naari tusaysaa sawirka isaga iyo Haarin waxayna weydiinaysaa gabadhan inuu yaqaanay in kale. Naari marka uu arkay sawirka aad ayuu u naxayaa wuxuuna dhahayaa aniga ma aqaanin gabadhan. intaas kadib ayada intay xanaaqdo waxaa ku kacaysa sokorta iyo burka waxaana arkaynaa iyadoo sariirta saaran oo la dardaarmaysa Naari waxayna ku leedahay tan iyo caruurnimadeedii ilaa hadda waxaan ku fikirayaa mustaqbalkaaga wanaagsan
waxaan kaa rabaa naftaada inaad u doorto gabar caqli badan kadibna inaad guursato ayaan rabaa. waxayna leedahay hamigii ugu dambeeyey ayaan dunida ka leeyahay ee ilmahaaga inaan arka ayaan rabaa. subaxii xigtana waxaan arkaynaa naari oo jooga xafiiskiisa. kadib waxaa u soo galaya caawiyaha wuxuuna u keenayaa dukumiinti. naari ayaa furaya dukumiintigii balse dukumiintigu wuxuu noqonayaa midkii ay shaqada ku soo dalbatay Haariin. wuxuuna qiimeynayaa waraaqaha codsiga shaqada ee Haariin. maalintii xigtana waxaana la tusayaa mataanaha Haariin wayna isku egyihiin. aniga waa la yaabay adiga ma la yaabtay daawade. si aan aniga iyo daawadayaasha aan ugu wareerin si fudud waxaan ugu wici karnaa oo waxaan leenahay gabadhan Haana ayaa la dhahaa. intaas kadib Haana waxay isku fiirinaysaa miyaarad kadibna dhaawac ayay wejigeeda ka arkaysaa. waxayna soo xasuusanaysaa hadal uu dhakhtarkeeda dhahay kaasoo ah in wejigeeda qaliin lagu samayn doono. Haana waa ganacsato weyn waxayna heshiis la galaysaa Naari si ay u hesho lacag qaliin loogu sameeyo wejigeeda. Naari ayaa dhahaya Haana haddii aad u baahan tahay lacag aniga ayaa heshiis ila galaysaa kaasoo ah waxaad iska dhigaysaa saaxiibteeda oo kale yacni jaceylkayga. wuxuu dhahayaa Naari ha iloobin labadeena waxba nagama dhexeeyaan kaliya heshiiskan inaan galno waa muhiimadeena. intaas kadib Haana waxay saxiixaysaa heshiiska uu soo bandhigay Naari. maalintii xigtana waxaan arkaynaa Haana iyo Haariin oo wada hadlaya. waxayna ka wada hadlayaan sidii lagu keeni lahaa Haana lacagta qaliinka loogu sameyn lahaa wejigeeda. intaas kadib Haana waxay walaashay tusaysaa heshiiska ay wada galeen maalqabeenka magaalada ee Naari. waxayna leedahay waxaan waayay waxaan daawada ku gato midaas ayaa igu qasabtay inaan Naari heshiiska la galo ayadiisna aan ka farxiyo. Haariin waxay leedahay gabariyay haddii ay ku dareento ayada Naari ogaatan inaadan ahayn Haariin maxay sameyn kartaa. dhinaca kalena waxaan arkaynaa Haana oo labisan waxayna u socotaa qolka uu ka degan yahay hoteelka ee Naari. Naari ayaa si lama filaan u soo jiidaya Haana. intaas kadibna waxay yeelanayaan shir albaabada u xiran tahay. Naari wuxuu dhahayaa haddii ayadana dareento heshiiskan uu fashilmo labadeena isma naqaano. haddaba waan kuu sheegayaa is ilaali ayadeeda waa qof wax badan fahansan sirtan soo saari karta. intaas kadib labadooda waxay ku heshiinayaan guur boojo ah. Naariinna wuxuu dhahayaa haddii ayadii horteeda aad ka sheegto wax qaldan lacagtaada ayay ka jaran tahay. waraa loo dhahay nin xoog leh xaaje u hartay hadda waa la bedelay maamaada qof hanti leh xaaje u hartay waa sheekada. maalintii xigtana waxaan arkaynaa Naari oo ka celinaya Haana wiishka. wuxuuna u sheegayaa in wiishka saaran tahay ayadiis balantana ay sidii tahay. subaxii xigtana waxaan arkaynaa ayada Naari oo la hadlaysa Haana iyo Naari oo wada joogaan. waxayna leedahay Haana waxay joogaysaa gurigeyga oo meelna ma aadayso. intaas kadib Haana aad ayay u naxaysaa. waxayna leedahay maxaan gurigaaga u joogayaa. Naari ayadiis ayaa mar kale ku dhahayso waa inaad nala joogtaa gabadheeda. Haana oo sii wadata dooda waxaa u baaqaya Naari. Naari wuxuu dhahayaa ayayo labadeena waxaan go'aansanay inaan isguursano. ayado farxad darteed ayuu wadnaha u xanuunayaa balse wadnaha ma wax xanuunina qorshe ayay ka wadatay wayna dhool cadaynaysaa. duqda caadi maahan. Haana waxay Naari ku dhahaysaa qandaraaska heshiiskeena kuma jirin inaan gurigeena joogo. Naari wuxuu ku jawaabayaa waxba ha walwalin inta aad gurigeyga joogto kuma soo dhawaanayo. ayada marka ay caafimaado waad iska tagi kartaa ayuuna dhahayaa. qandaraaskeena halkaas ayuuna ku eegaya ayuu leeyahay lacagtaada ayaan ku siinayaa. habeenkii xigtay Haana waxay walaasheed u sheegaysaa wax walba oo ay kala soo kulantay familka tahajiriinta. intaas kadib Haariin walaasheed waxay siinaysaa agabka badbaadada si ay isaga ilaaliso Naari inta ay gurigiisa joogto. maalintii xigtayna Haana waxay soo raacaysaa gaari balse inta uu dhaqaaqin gaari kale ayaa lagu dhufanayaa. lamana ogo qofka ka dambeeyay arrinkaas. Haana halkaas waxaa ka soo gaaraya dhaawac fudud isbitaal ayaana la geynayaa. intaas kadib isbitaalka waxaa ku soo booqanaya saaxiibkeed John. dhinaca kale Naari ayaa laga soo wacayaa isbitaalka waxaana loo sheegayaa inay shil gashay Haana. Haana ayaa laga soo saaraya isbitaalka iyagoo raba inay guryahooda aadaan. waxaa u imaanaya Naari. intaas kadib John wuxuu weydiinayaa Haana qofka uu yahay Naari. Naari ayuuna dhahayaa halkan maxaa ku keenay. Naari mar walba wuxuu jecel yahay su'aalaha inta badan inuu isaga dadka weydiiyo. Naari John wuxuu ku dhahayaa halkan maxaa ku keenay adiga xitaa. John wuu ayaa ku jawaabaya aniga waxaan ahay saaxiibka Haana aniga darteed ayayna shilka u gashay. Naari wuxuu dhahayaa waa ka baqin qoftan daawadeeda iyo wixii lacag aniga ayay dusha iga saaran yihiin. intaas kadib Naari wuxuu gacanta ka soo qabsanayaa Haana balse intuu u dhaqaaqin John wuu ayaa isagana gacanta ka qabanayo. wuxuuna dhahayaa saaxiibteeda horteeda inaa ku wada mid aan ka aqbalayo maahan ama ku ogolaanayo. dhinaca kalena waxaana la tusayaa Haana iyo Naari oo ku wada jira gudaha baabuurka. Naari wuxuu dhahayaa soo qaado boorsadaha ilaa guriga balanta sidii ayay loo ahaanaysaa. maalintii xigtana waxaana la tusayaa Haana oo soo qaadatay boorsadeeda kadibna u soo dhaqaaqaysa guriga Naari. halkaasna waxay ku arkaysaa Naari wuxuuna dhahayaa qolkaad seexan leed waan kuu diyaariyey ee degnaa muuji. intaas kadibna waxaana la tusayaa qolka ay seexan leed Haana. halkaasna waxay ku arkaysaa ramuud waxayna u malaynaysaa ramuudka dhalada ayayna ku aadinaysaa. ramuudka ayayna taabanaysaa balse si lama filaana waxaa u damaya nalka musqusha uu ku jiro Naari.
naari uu qabeysanayo wuxuu arkayaa nalkii musqusha oo damay banaanka ayuuna u soo baxayaa si uu u ogaado waxa ku dhacay nalka kadibna wuxuu arkayaa Hana oo meelaha ordeysa remote-na rabta inay nalka ku damiso ama ku daarto wuxuuna fiirinayaa ayada dhankeeda xishood darteed ayayna loo ordeysaa Hana isagana wuu ka daba ordayaa si uu remote-ku u qaado balse indhaha ayuu ka qabanayaa subaxii xigtay Hana waxay la quraacanaysaa naari ayadiis duqdaan waa miisaanka culus iska ilaali aqliga ku jira caadi maahan intaasna waa qadar la siinaa intaas kadibna Hana waxa fariin u soo diray saaxiibkeed yaraanta ee John Hu wuxuu ku balminayaa cashada Hana ayaana imaanaysa goobta lagu balmiyay John Hu ayaa su'aal weydiinaya Hana wuxuuna dhahayaa ma doonaysaa xiriirkeena saaxiibtinimo dheereeno Hana waxay ku jawaabaysaa taas maxaa diiday waan ogolahay kadib John ayaa hadiyad siinaya Hana hadiyadaasna waa alaabta isku qurxiyaan dumarka Hana waxay dhahaysaa mahadsanid John isagana wuxuu dhahayaa mahadcelin isku milihiin qof yahay dhinaca kalena Hana oo sugaysa taxi waxa uu imaanaya naari uuna soo kaxeynaya guriga ayayna imaanayaan intaas kadibna naari wuxuu ka codsanayaa Hana inay u doorto labiska uu xiran lahaa Hana kuma fiicna labiska oo ma kala taqaano balse waxay u dooraysaa labis naari ayaa soo xiranaya labiskii Hana waxay dhahaysaa aad ayuu u qurxoon yahay labiskaaga kadib Hana ayaa soo xiranayso labis u qaab eg naari halkaas ayayna sawir ku galayaan sawir qaadahana wuxuu dhahayaa aad ayaad u nuureysaan sawiradiina xitaa waad u diri kartaan Zikriya iyo asxaabtiisa ku xiran janaalkiisa taxanaana qeybtiisa hore halkaas ayuu noogu egyahay mar dhow iga suga taxanaan qeybtiisa labaad kana xiisa badnaan doona midkii aad hadda daawateen mahadsanidin saaxiibayaal